nabadii daawadayaal halka aad nagala socotaan waa janalada caanka ah ee Soomaali Baaqir TV xog suge media TV waa janalo mataana ah kuna midoobay inay Soomaalida ka haqabtiraan wararka caalamka waayo Soomaalidu waxay ka indha daboolan tahay ama ay ka dhaga awdan tahay guud ahaan waxa caalamka ay ku dhex nool yihiin ka jira Soomaalidu waxa ay ku mashquushay dagaal iyada gudaheedii ah kaas oo lagu gaari waayay 30 sano ugu dambeeyay wax horumar waxay warbaahinta xog suge media oo kaashanaysa warbaahinta caanka ee Soomaali Baaqir Media isu taageen oo u tafaxayteen in ay Soomaalida ka saaraan madmadowga iyaga dhexdooda ka jira si loogu xiro wararkii ugu dambeeyay caalamka ka soo dhacay sababtoo ah caalamku waxa uu gaaray qorshooyin aad u waaweyn oo ay koow ka tahay inuu samaysto qumbudarooyin waaweyn uu dadka ku gumaado isagana isu gumaado haddii ay xaalka xumaato haddii xaalka uu wanaagsan yahayna ay ku kala nabad galaan Soomaalidu qori aaka ah ayaa ugu weyn waxa ay haysato horumarna waxa ugu weyn wax aan la sheegi karin si ay Soomaalida maskaxdooda u dhisanto dhaqaale badan u samayso hub nuucyadiisa kala duwan u samaysato dadyow cilmi lehna u noqoto waxa muhiim ah halka uu caalamka tagan in mar walba lagu xiro arintaasi waxa qabaha u gashaday oo waqti badan geliyay aqoon-yahanka caanka ah ee aad uga barteen habeenadii la soo dhaafay in uu idinkaga soo gudbiyo Soomaali Baaqir TV xog suge media TV wararkii caalamka waa aqoon-yahan Farax Sheekh Ibrahim Farax iyo idinka ayaan hadda sadarkin dhaxbaxaya iyo wararkii u dambeeyay caalamka halo Farax waan ku maqlahayaa sheekhana ustaad Salmaan Axmed Xuseen jazakallahu khayran haddii aynu barnaamijkeenan hore u gallo arrimaha geyigana Soomaalidu inta ay degto ka soo cusboonaaday waayahan waxa ugu waaweyn madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ku sugan dalka Kenya madaxda ugu sarreeya ee dalka Kenya madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Muigai Kenyatta la yeeshay wada hadal iyo wada fadhi oo ay ka wada hadleen arrimihii ay labada dal isku haysteen oo ahaa badda dalka Soomaaliya iyo khilaafaad kale oo u dhaxeeyay waayahanba dalka labada dal oo madmadow soo kala dhaxgalay arrinta iyada ah adeecadaha Kenya iyo wargeysyada ugu waaweyn ee dalka Kenya waxay sheegayaan in inta badan khilaafaadkii yaryara ee hoose oo aan ka ahayn midkii maxkamadda ee weynaa in laga gaaray heshiis bay cadaynayaan dhamaantood waa dalkan aan anigu ku sugnahay ee Kenya inahaasa ugu waaweyn waxyaabaha ugu muhiimsan dhinacan kale barnaamijyadii aan ka hadli jirnay iyo arrimihii aan falanqayn jirnay ee bariga dhexe waxaad moodaa xiisadii bariga dhexe inay aad iyo aad u soo kululaatay caawa waxaan ku horeynaynaa dalka Yemen hore waxaan idinku soo sheegay isbuucii hore ee tagay in dalka Yemen oo waayihii u dambeysay 5 sano hadda u dambeysayba colaadda sokeeye ay daashadeen oo markii ugu dambeysayna ay ku duuleen xulafadii isbahaysiga Sacuudigu uu horkacayay ee loo yaqaanay Caasifatul Xasmi in ay ayaantii u dambeeyayba ay door bidahayeen markii lagaga awood roonaaday kooxihii xulafada ahaa oo jabhadii wadanka ka dagaalamayay Xuutiyiinta ee hogaaminayay Badruddin Abdulmalik al-Xuuti ay kaga awood roonaatay inay sameeyeen la hadal iyo gogol inay u fidiyeen kooxda iyaga madax ka socotay kooxda iyaga ee Xuutiyiinta ayaa ayaantii u dambeysay isbuucii u dambeysay waxay ku sugnaayeen magaalada Riyadh kooxda iyada dawladda Sacuudi Carabiya waxay u ballan qaaday in dalka iyagu ay la wareegaan tadaakhulka ay ku hayaan iyo gacmaha ay kula dhex jiraan dawladda Sacuudi Carabiya inay ka keeni weyday guul inay ka keeni weyday arrinta iyada ay u madax banaanaynaysa dalka reer Yemen dhibaatadii ay u geysteen iyo dadkii ay laayeen ay ka bixin hayaan magdhow arrinta iyada waxa aad iyo aad maanta iyo shalayba u sii daayay adeecadaha waaweyn ee caalamiga ah oo ay ugu horeyso adeecada Al Jazeera oo waxa weeyaan adeecadaad iyo aad u afdheer ah qanaadka isaga wuxuu sheegay isbuucyadii u dambeeyayba maadaama aanu wax badan aan ka sii ogaaba asaguna si fiican ayuu u tafatiray labadii maalmood ee hadda u dambeeyso arrinta iyada uu shaaciyay waxaadna ka garanaysaa wixii u horeeyay ee lagu heshiiyay waxay ahayd xabad joojin xabadda oo ka socotay maalmihii ugu dambeysay gudaha dalka Sacuudi Carabiya ayaa waxa lagu heshiiyay in la joojiyo xabadda ka socota halka iyada wada hadalna wax lagu dhameeyo oo miiska wada hadalka la isugu yimaado barnaamij carbeedna wax lagu raadiyo
arrinta iyada kulli sida ii muuqato xuutiyiintu way ka faa'iideysan doonaan barnaamij carbeedna awal horeba wax way ku raadin hayeen taageero awood badanna waxay ka heli hayeen oo weliba dhuumaalaysi ku socoto dowladda Iiraan arrinta iyada waxaan u malaynayaa xiriirka Iiraan iyo u dhaxeeyo xuutiyiinta inuusan marnaba wax nusqaana uusan gelaynin oo sidiisii ugu sii socon hayo nimankan maadaama oo ay yihiin niman bislaaday aqoon-yahamiin ah aragtidoodu ay aad iyo aad u dheer tahay dowladda Sacuudi Carabiya iyo maamuladan halkan ka dagaalamaya Imaaraadka iyo waxa weeyaan Suudaanna ay yihiin niman ka khibrad badan kooxdan iyaga jabhadda ah waxay ila tahay heshiiska iyaga ee Sacuudi Carabiya ay wato uu midho dhali doona sidooda in bayna xiriir ula yeelan hayaan oo xiriirkooda uusan joogsanaynin ay la lahaayeen dowladda Iiraan waxa sidoo kale ururkan isaga ee xuutiyiinta uu culays aad u fara badan ku hayaa dowladda Israa'iil oo kaliya uu jiro in ka yar waxa weeyaan 1800 oo kiiloomitir oo gantaalada iyaga gacmahooda ku jiro meel walba iyo buqcad walba oo maanta ka mid ah dalka Israa'iil gudihiisa ay duqeyn karaan dowladda Israa'iil waxay maalmihii ugu dambeysay u hanqaltaagaysay kooxaha iyaga ah iyo meelaha ay hubkooda ku kaydiyaan iyo meelaha ay ku sameeyaan dalka gudihiisa Yemen daa'iraadkan musayyaraadka ee la sanceeyay ee waxa weeyaan bilaaduuliyaha ah sidii ay u garaaci lahaayeen iyaguna u hanqaltaagayaan maalmahan iyo isbuucyada soo socda waxaad maqli doontaan arrin nooca iyada ku saabsan iyo dowladda Israa'iil oo talaaban ka qaadnay tiri kooxda xuutiyiinta ayaad arki doontaan dhinaca kale dagaalkii u dhaxeeyay islaamul jihaad iyo Xamaas iyo waxa weeyaan garbahan kale hubaysan ee ay ka mid yihiin kooxdan loo yaqaano xarakatu saabiriin ee shiicada ee ka dagaalama iyaguna Gaza maanta dagaalkoodii aad iyo aad buu xoogaystay dagaal aad u fara badan oo waxa weeyaan gantaalo badan la isdaba marsaday garaac aad u badan baa ka dhacay maanta gudaha dalka Israa'iil iyo marinka Gaza dagaalka isaga sidii aan horeyba u soo sheegnay sida uu hadda u bilowday inuusan istaagin baa laga yaabaa ilaa kooxaha iyaga ay gacmaha iskula tagaan waxaana ii muuqato aragtida ii muuqato waxay tahay dowladda Israa'iil meesha iyada inay ka soo gaari doonto jab aad iyo aad u culus inuu ka soo gaari doono waxa iyaduna maalmihii u dambeeyay ku soo qulqulahayay dalka Lubnaan gudihiisa ciidanka loo yaqaano Fayraqul Qudus ama ilaalada kacaanka ah ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan ay leedahay inuu rag fara badan oo madaxdiisa ay soo gaareen gudaha dalka Lubnaan waxayna ka soo gudbeen Suuriya arrinta iyada waxa weeyo waa arrin idaacadaha caalamka ugu waaweyn iyo qanaadiyada waaweyn ba ay faafiyeen waxaana dhici karto sanadkan 2020 in Israa'iil ay ka zuusho gayiga bariga dhexe ama ay hadaysan zuulin ay gaadho dhibaato aad iyo aad u culus in la gaarsiiyo ayaa dhici karta sidoo kale waxaad ogtihiin madaxweynaha dalka Turkiya Rajab Tayyip Erdogan in uu ku sugan yahay dalka Mareykanka oo uu gaaray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trumpna ay kala saxiixdeen heshiisyo ku kacahayo bilaayiin dollar oo ganacsi ah arrinta iyada waxaan dhihi karnaa waa guul uu la soo cumaamaday ama uu la soo laabtay madaxweynaha dalka Turkiga oo waayihii u dambeysay ba cadaadis aad iyo aad u culus ay saarahayeen kooxdan loo yaqaano Congress-ka ee Mareykanka arrinta iyada waxa weeyo waxa u dhul jiifteeyay madaxweynaha dalka Mareykanka oo yaqaano ciyaaraha ganacsiga kana faa'iideysto meelaha uu arko inuu ka ganacsan karo ama uu wax ka heli karo ama isagu uu ku tuuran karo wadaanta ayaad moodaa inuu ka faa'iideystay arrinka isaga waxaanan insha Allah samayn doonaa inaan falanqayno maalmahan inoo soo socdo waxyaabaha ay ka wada hadleen labada madaxweyne waa madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha dalka Turkiya Rajab Tayyip Erdogan biidhnillah ilbaari waxa kale oo jiro barnaamijyadii ka socday dalka Lubnaan iyo dalka Ciraaq inuu isaguna iska yaraaday oo hadda uu u eg yahay gabagabo horeyna waxaan u sheegnay oo wax isbedel oo labada dal ka dhici doono haba yaraatee ma jirto ayaynu niri wax hadda isbedel oo muuqdo oo ka dhici doona ma jirto ra'iisul wasaaraha iscazilay waxba wax hadda uu ku keenayo dalka oo dhib ma jiro ra'iisul wasaare kale oo cusub ama isagu la soo celin ama ra'iisul wasaare kale oo cusub oo kooxda sunniyiinta dhinacooda laga keenayaa sidii waligiiba arrinta iyada loo qaybsaday saddexda qole ee dalka degan gudihiisa ay u qaybsadeen waa kooxda shiicada iyo kooxda sunniyiinta iyo kooxda waxa weeyaan kristanka sidii ay u qaybsanaayeen talada dalka ay ugu qaybsanaydba bay haddana u ahaan doontaa wax isbedel oo ka iman doona isaguna dalka Lubnaan ma jiro
sidoo kale dalka ciraaq ayaamihii u dambeeyey waxaa socday banaanbaxyo awood badan oo looga soo horjeeday dowladda oo ay wadeen kooxda shiicada ah ee lafteeda talada dalka haysato taa iyadoo laga abaabulay dalka sacuudi carabiya gudihiisa waa mamlakada sacuudi carabiya iyo dowladda imaaraadka iyo dowladda maraykanka oo iskaashan hayo taa iyadoo ay diidan yihiin dowladdan uu hadda hogaamiyo ninka loo yaqaano caadil cabdulmahdi oo nin shiici ah oo awood badan dalka gudihiisa ku leh iyo dibaddiisaba ah sidii ay ugaga takhallusi lahaayeen ee ay u samaysan lahaayeen dowlad iyaga ka amar qaadato oo dabadhilif ah taa iyadaana waxaa ii muuqato inaysan soconaynin oo maxaa yeelay waxaa jooga jabhado aad iyo aad u awood badan kuna hubaysan gantaallo casri ah oo gaadhahayo ilaa 700 oo kilomitir ilaa 800 oo kilomitir ilaa 900 oo kilomitir oo buqco walba oo dalka sacuudi carabiya gudihiisa ah iyo dalka imaaraadka garaaci karo arrinka isaga waxaad moodaa in ay dowladahaas oo dhaqaale badan ku bixiyay mamlakada sacuudi carabiya iyo dowladda imaaraadka iyo dowladda maraykanka in ay iyaguna kala soo laabteen halka iyaga fashal awood badan oo iyaga ku yimid arrinta iyada ah iyo dhaqdhaqaaqii ka socday iyo banaanbaxyadii ka socday aad iyo aad buu u yaraaday wixii kale ee ka soo kordhana insha Allah waan sii cadaynaynaa mar walibana waan idin la wadaagaynaa biidnillahi albaari wixii ku soo kordho insha Allah bariga dhexe mar waliba waxaan isku dayaynaa inaan si joogto ah idin siino biidnillahi albaari daawadayaal dhageystayaal kaasi wuxuu ahaa aqoonyahan Faarax Sheekh Ibraahim oo inta badan inagu xira wararka caalamka waxaan idinka rabnaa inaan habeen walbana idin sheegno waxaan habeen walba idin sheegaynaa adinkuna idinka rabnaa inaad subscribe saarataan labada channel ee caalamka idinkaga soo waramo ee Somali Baqir TV iyo Xog Suge Media TV waxa xusuusin mudan inaan caawa idin wadno channel kale oo aad ka heli doontaan sida make-upka loo marsado waxyaabaha dumarka isku qurxiyaan aad ka heli doontaan ee Shamso Official page Shamso Official isaguna waxaan rajaynayaa inaad subscribe saarataan oo aysan cid idinkaga horeynin habeen wanaagsan xilligan xilligeedii nooli kulanto